بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa Maxamed Axmed Yuusuf oo kamid ah ardayda ku nool waddanka Bangladesh. waxaan ahay arday dhigta jaamacadda loo yaqaan Dhaka International University. halkan waxaan doonayaa idin kala wadaago urur aan u aasaasnay waxbarashada la ku tacalluqda computer science-ka iyo deegaanka ku xeeran. ururkaas waxa loo yaqaan Somali Initiative Society. hadda caawa waxaanu qabanay kulan bandhig xagga waxbarashada iyo project-yo aan sameynay iskaga wareysanayno. ururka mar walba wuxuu taagan yahay inuu activate gareeyo ama uu tamar kulaala siiyo ardayda individually wax u barato si ay iskugu timaado isku gacan qabato. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaynu caawa soo jeedin doonaa project ka mid ah project-yaan diyaarinay ka urur ahaan ururka ardayda SIS waddanka Bangladesh. project ahaan waxaan kaga qayb galayaa hal project oo ah e-commerce website aan ku diyaariyey front-end ahaan kaas oo ay qaadanayso ay iga qaadatay wax ka yar hal usbuuc. waxa kaloon design gareeyey oon dejiyey project koobaya dhammaan front-endkii oo dhan kaasoo ku diyaariyey HTML, CSS iyo JavaScript. markaa waxaynu soo bandhigi doonaa caawa project-kii isagoo real life ah oon diyaariyey. عليكم magacaygu waa Maxamed Daahir Maxamed. waxaana ka mid ahay member ka mid ah ururkan Somali Initiative Society oo loogu talagalay soo saarka iyo habeenta project-yada sida ha noqoto website ama application iyo wax doontaba. marka qaybteeda aniga la igu talagalay horta waxaan ka socdaa jaamacadda Daffodil oo halkaas arday waxaan hadda dhammeyn rabo semesterka ugu dambeeyay gali rabo hadda. marka project-ka aan soo diyaariyay wuxuu ahaa website oo loogu talagalay in lacagaha lagu kala bedelo lacagaha qalaad adduunka ahaatee lacagta cryptocurrency-ga loo yaqaan Bitcoin. marka website-kayga marka aad furto inkastoo uu yahay website oo local host aan online ahayn balse wuxuu ku qaban karaa barnaamijyo badan runtii oo ah inuu aad ku kala sarifato lacago kala. Suldaan Yaasiin Salabaan waxaan dhigtaa jaamacadda Dhaka. waxaan ahay imika semestrada dhexe ayaan ku jiraa. halkan waxaan ku soo jeedinayaa project aan diyaariyay anigu oo muddo oo kooban igu qaadatay inaan diyaarintiisu weeyaan aan dhamaystiro. alxamdulillah imika waa dhamaystiray guulna waan ka gaadhay waan complete gareeyay. waxa kaloo aan xubin ka ahay ama aan ahay member ka mid ah ururka Somali Initiative Society. runtii urur u taagan weeyaan sidii qof kasta oo shakhsi kasta oo hamiyo himilaba leh uu ku gaadho dhinaca aqoonta marka la eego uu doonayo inuu ka gaadho heer aqooneed oo isku ku filan isaga markaa. alhamdulillah magacaygu waa Sidiq Maxamed Cali Kaneeco. waxaan dhigtaa jaamacadda Dhaka International University Bangladesh kulliyadda Electrical Electronic and Telecommunication Engineering WTE. sanadkan waxaa semesterkii 9aad. groupkan waxaan ku soo biiray bishii aanu soo dhaafnay Agosto. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Ibrahim Faarax Axmed. waxaan ahay arday Soomaaliyeed oo wax ka barta waddanka Bangladesh gaar ahaan caasimaddiisa Dhaka. waxaan ahay arday dhigta Department of Electrical Electronics and Telecommunication Engineering jaamacadda Dhaka International University oo ah yeeriski dambe ama last yeeriski ku jira. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu Maybwa Aawid Hussein. isla markaasna arday oo ku barado jaamacadda Prime Asia qaybtii computer science ama IT sabab lama sin kaso. Maybwa ku mudda ururkan oo kamidaysan ardayda kaasoo leero Somali Initiative Society. maybwa fadaygeek inaan taaka bandhigka project أنا كسمي HTML and CSS. isla markaasna project-kaas website dhammaystiran kaasoo nabadaasi in ku dhowahay